kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo naga daawanaysaan subax wanaagsan waa barnaamijkeennii ugu horreeyay maxaa ka soo kordhay xaaladda gobolka bariga dhexe saakay warbaahintu maxay ka hadlayaan xalayse maxaa dhacay wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin hayaa haddaba barnaamijka waxaanu ku bilaabaynaa maraykanka ayaa weeraro cusub xalay saqdii dhexe mar kale ku qaaday iiraan waatay hore u sheegtay haddii nala soo weeraro annaguna weerarkaas cabirkiisa mid leeg ayaanu ku jawaabaynaa hadduu yahay weerar culus waxaanu ku jawaabi doonaa mid culus hadduu yahay weerar dhexe oo dhexdhexaada mid dhexdhexaad ah weerar iska yar hadduu yahay xataa lama cafinayo mid yaraa lagu jawaabayo dheh haddaba xalay weeraro dhexdhexaadaha lagu qaaday sida wararku ay leeyihiin xataa waxaa la burburiyey sida la leeyahay meel tareenada maaragtay buundo tareenada isku xirta iyo magaalooyin kale iyaduna maxay samaysay xisaabtii markii hore ay garaaci jirtay maalmihii lasoo dhaafay kuwait iyo baxrayn hadda qatar ayaa kusoo biirtay oo siiriga digniinta xilligan aan idinla hadlayo u isqabsaday meel kasta cabsida laga qabo in weeraro ay kusoo wajahan yihiin qatar haddaba wararkii ugu dambeeyay haddaan marka hore ka bilowno ciidamada maraykanka ayaa la sheegay inay weerar ku qaadeen cusub goobo ka tirsan gudaha dalka iiraan haddaba warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa xalay saq dhexe waxay sheegeen in ciidanka maraykanka ay markaa bilaabeen weeraro cusub oo ay ku qaadayeen bartilmaameedyo cusub oo gudaha iiraan ah haddaba waxay sheegeen weeraradaasi ujeedadoodu inay tahay in la wiiqo awoodda ciidamada badda ee hurmus ku shaqada leh ee iiraan haddaba taliska dhexe ciidamada maraykanku waxay sheegeen in markaasi ay iiraan qaadi doonto mas-uuliyadda waxa ay ku tilmaameen xadgudubyadii ugu dambeeyey ee marmarsiyada aan lahayn ee ay ku qaadeen ciidamada iiraan weerarka maraakiib ganacsi oo maraysay halkaas oo la sheegay in qaarkood ay khasaare u geysteen haddaba maraykanku waxay sheegeen dhowr bartilmaameed oo ku yaala gudaha dalka iiraan xalay inay beegsadeen oo ay duqeeyeen warar goordhow soo baxay waxay sheegayaan in maraykanka la sheegay inay gantaal nooca kruuska ah ku dhufteen buundo isku xiraysay tareenada oo la sheegay inay markaa gudaha dalka iiraan ku taalay weerarkaas marka wuxuu dhacayaa saqdii dhexe ee xalay ayay weerar ka qaadeen iiraan marka jawaabteeda waa la sugayaa waaba shaki la-aan waaye isla markiiba markii weerar ku dhacay xoga ayay heleen dowladihii khaliijka meelaha iiraan ay soo weerari rabto waxaa ka bilowday cabsi diyaargarow heegangelid siiriyeerid ka bilaabatay haddaba markaan idintusoo telefishinka ruushka ee layidhahdo r t ayaa yidhi markii weerarka maraykanka uu qaaday kadib waxaa bilowday in heegan ay galaan dowladaha qatar baxrayn iyo kuwait iyadoo ciidanka kuwait durbaba ay markaa la kulmeen weeraro dhinaca sawaariikhda iyo diyaaradaha daroonka ah oo dhanka iiraan kaga yimid halka baxrayn iyo qatarna ay difaac xoog le galeen marka maxaa dhacay isla markii weerar ku dhacay nimankan dee iiraaniyiinta way sheegeen waxay dhahdeen annagu maalinkiina la soo weeraro qoryaheena iyo madaafiicdeena waa diyaar keebka saas gacanta ugu haynaa waana ugu soo rido waa ku ridaynaa marka xaalku halkaasuu marayay isla markiiba war kale ayaa haddana soo dhacay oo ku saabsan iiraan iyo tallaabooyinka ay qaadaysay isla telefishinka r t wuxuu yidhi ciidamada wadanka iiraan warbixin laga helay waxay sheegeen inay bartilmaameydsanayaan howlgal ballaaran oo ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamada maraykanka uu ku leeyahay gobolka sida ay ku warantay saake wakaalada la yidhaahdo nur news ee dalka iiraan waxay soo xigatay mas-uuliyiin militariga ka tirsan iiraan waxay sheegeen inay isticmaaleen gantaalo oo markaa ay ridayeen ciidamada iyo sidoo kale diyaarado daroonis ah oo markaasi ay ku weerarayaan oo weerar ballaaran ay ku qaadayaan saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay gobolka marka
way socotaa marka wali tafaasiil iyo natiijadii iyo wixii ka soo baxay ma jiraan laakiin gantaal daroonis saddex dowladood waa qaylinayaan qatar kuwait bahrain sheekadu halkaasay hadda joogtaa marka jawaabihii iiraana socda maraykanka xisaabtiisii xalay wuu ku kala baxay wuu dhameeyey subaxii waaga markuu bariyay iiraana iskale jawaabta iyadaa bixinaysa dhanka kale israa'iil war soo saartay yaable waxay tiri annaga iiraanay kuma jirno ogow annaga waxa ku soo weeraray Israa'iil haddaan nahay kuma jirno laakiin haddaan soo weerartiin waa iska kidcinayna macna ogaada way annaga gantaalihiina iyo wixii dhawaan nacabna nagu soo aadinina ha annaga Mareykan idin haysta annaga hana soo gelinina sheekadaas Iiraan ma waxaas qorays baasha lagu dhufanayo waxa meelaha laga weerarayaa meelaha iska yara amaane haddii weerar culus lagu qaado Iiraan waxay cafinaysa male meel walba nagtay ka saaraysaa leeyahay marka sheekadaas iyaduna halkaas ay maraysaa warka aadka u xiisaha badan ee saaka warbaahinta saaray shalay waxaan ka hadlaynay Trump asagoo jooga inuu amar bixiyay magaalada Ankara ee dalka Turkiga uu yiri hal la weeraro nimanka baarta Iiraaniyiinta isla markaas hadaa xusuusataan barnaamijkeega waxaan ku sheegay in ninka uu cabsi weyn ka qabo Iiraan Turkiduna ay heegan difaac gashay ninkan asagoo meesha jooga waa daris Iiraan iyo Turkigu waa laba wadan oo isku dhagan sida Itoobiya iyo Soomaaliya ama xuduud ay leeyihiin marka ma u daahayso Iiraan hoteelka uu joogo ninkan inay dukum daakum ka dhigto laakiin NATO iyo sheekada iyo wixii inay ku badato iyo sheekooyinkaas laakiin ninka wuu iska cabsaday hatta asagoo meesha jooga shir jaraa'id uu qabtay wuxuu sheegay inuu madaxda Iiraan isagu dilay iyagana ay isaga u soo socdaan ay rabaan inay dilaan intuu Ankara joogay ninka wuxuu rabo iska sheegay laakiin waxa la yaab kale waxa waaye oo saakay warbaahinta ka hadlayso ninkan markii uu Ankara tagayay talaadadii wuxuu ku tagay diyaaradii Qatar ay siiso ku tagay oo asagu habaystay oo tana hadda kadib aan ku duulaayo markii uu soo dhoofayay diyaaradii kaligeeda dhooftay asagii jooga waa la yaabay aw diyaaradii way iska baxdayba tii keentay way baxday mid hore oo qadiima uu isticmaali jiray oo Mareykanka la dalbay tii lagu qaaday waxa la yiri waxa laga cabsanayay laba arinba inkastoo ay Mareykanku wali faafaahin kow in Iiraan ay xogta diyaaradda haysatay markuu diyaaradda fuulo inay gantaal ku dhufatay kow ma ku dhufan kartaa mise ma ku dhufan karto waa sheeko kale taas waa la ogyahay Iiraan inay xataa meel kasta tagi karto marka diyaaraddaasi marka saasa marka waa la sahminay way baxday in Iiraan wax ku tuurayso mid labaad waxa leeyahay iyadana waxa laga baqay systemkeeda si fudud inay Iiraan kula wareegto hogaaminta iyadoo wax gantaal ku dhufaninba internetka inta la galo diyaaradii hogaaminteeda laga wareego odaygiisu gabgab leh taaraan laga soo dajiyo sheekadaas marka iyadana waa laga baqay marka waxa la yiraahdaa diyaaradda waa cusubta la isku mahaleey kara systemkeeda diyaaradii qadiimka ayadu madaxweynayaashii hore dhan ay raaci jireen aan keen ragii marka qaabilsanaa securitygiisi ayaa diyaaradii markay direen tii kale ku dafeen tii hore oo qadiimka ayada odaga inta la saaray aan lagu la cararay cabsida meesha ka jirta fiir ninka marka waa macangag waa mintid waay diyaaradii wuxuu dhahay Ingiriiska halii dhigo tii oo qadar taas jeclay raadin waa aqalki cado duulayo dhahay bogtay taas wuu ka helay oday wuxuu dhahay wallahi ka taay Iiraan ma soo dhaafaa Ingiriiska ay u dagto صدق military Ingiriis kula lagu dajiyay tii kale wuxuu dhahay Ingiriiska lagu dajiyay waa lagu dajiyay tayda raaco tii hore ee qadiimka tii hore tii cusbayd raaco tii qadiimkeed waa ka dagay tii kale airportka lagu kala bedelaya videogiina waa idin haya sheekada la yaab kale ee dhacday waa idin soo gudbin doonaa haddaba markaan idin tuso wargeyska la yiraahdo Al-Sharq ayaa wuxuu qoray sheeka la yaab leh wuxuu leeyahay diyaaradda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxay joogsatay saldhigga ciidamada cirka ee boqortooyada Ingiriiska si markaasi uu ugu badasho diyaaradda kale haddaba Air Force One diyaaradda la yiraahdo 747 ee cusub ee ay u hadiyadeysay dawladda Qatar ayuu halka ka fuulay kadib markii la sheegay Trump inuu Turkiga kaga soo baxay diyaaradii qadiimka ahayd ee si la yaab leh ee dadku ay la yaabeen diyaaradiisii horena uu iska fasaxay iyadoo markaa diyaaradii qadiimka ahayd halka uu ka soo raacay
marka sheekada la yaab kale iyaduna dhacday videogaas marka la soo bandhigay marka videoga marka sida arkaysaan waxa la soo sawirayaa odagiyo oo saldhigii Ingiriiska diyaaradii qadiimka ahayd ka degaya oo markaas kadib haddana lugaynaya diyaaradii kale hore ka raacay ciidu salaama mal askarta meesha taataawun hal marsaan leeyahay diyaaradaan oo ka dega diyaaradaas oo kora oday markii nimankii xataa waardiyeynay way ku wareereen war diyaaradan isaga baxo Mareykanka ku geeyo mayuu leeyahay soo baxatan cusub rabaa inaan raaco hadda Iran ma meesha ka dhowso Ingiriiska ma meesha la joojiyo labadii diyaarado meesha lagu dajiyay tii qadiimku ka degaya marka tii kale oo cusbeedu fuulaya sidaas uu marka Washington ku aaday marka sheekada iyaduna waxay ka mid tahay warar kale oo cajiib ah jirta iyaduna shirkii NATO laga diiwaan galiyay shirkii NATO waxa leeyahay madaxweyne Erdogan wax la yaab leh oo waligeed NATO aysan sameyn oo laga sameeyay shirarkeedu sameeyay hadiyado giftiya in la isasiiyo madaxda ku imaata waa caadi ninkan muxuu sameeyay madax kasta oo meesha timid oo NATO oo ka qayb galaysa shirka wuxuu siiya bastoolad magaciisa ku qoran bastoolad magaciisa ku qoran oo rasaas ku cabeysata wali bastoolad turkigu sameeyay oo khatar ah oo magaciisa ku qortay oo rasaas ku jirto odayaasha nagta iska saaraan mukooda Erdogan yaa yaqaan ilaa hadda way yaabeen waa shoogeenba nimankii reer galbeedku way yaabeen safiirka Ingiriiska wuxuu baalkii ra'iisul wasaaraha Ingiriiska wuxuu dhahay aniga wadankayga sharci ma ahaba hub inaan la galo marka hubkii waxaan iskaga reebay halkaan kii Jarmalka soo booday isagana afayeenkiisa wuxuu yiri safaaradii Jarmalka iska dhigna bastooladii war bastooladan maxay Erdogan hadiyad way leeyahay marka ninka adduunki waa wareeray ninka Erdogan madaxdii uu ka yaabsaday leeyahay hadaba markaan idin tuso warbixintan waxa qoray telefishinka Carabiga saaki wuxuu leeyahay hadiyad oo muran badan dhalisay ayuu Erdogan wuxuu siiyay madaxdii NATO bistoolado ayuu siiyay lagu qoray magacyadooda ayaa lagu leeyahay oo fiirsada bistoolad nin walba cabaysan oo magaciisa ku qorataa la siiyay ninka Erdogan waa ka yaabsaday adduunkii oo dhan hadaba marka xaalku halkaas uu marayaa saaki jugta la isku hayaa marka sheekadu halkaas marka maraysa wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijka saaki wixii xalay dhacay wixii saaki dhacay wixii kale oo soo kordhana barnaamijyada dambe ayaanu idin kula socodsiin doonaa meel kasto aad naga daawanaysaan asxaabay la gareeyo oo share gareeyo barnaamijka inta aan mar kale barnaamijka lamida ku kulmayno nabadgelyo